xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka hadlay sidii looga gaashaaman lahaa isla markaana looga taxadiri lahaa qaran ahaan dadka ka soo degaya garoonka caalamiga ah ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa waxaana uu sidoo kale xildhibaanku u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland in ay fiisa ku xidhaan dadweynaha ka imanaya dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya sidoo kalena lala socdo muddada uu joogayo wadanka waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaan inay ilaashadaan midnimadooda inay ilaashadaan qarannimadooda dadka madaxdeena caaya ama madaxdeena committee ugu faraha badan ka bixinaya waa dadka Hargeysa degan ee reer Soomaaliya ee Hargeysa ku soo gala bilaa fiisaha ee Hargeysa iyo Soomaaliland ku yimaada bilaa kafiilka waxaan soo jeedinayaa taliyaasha qaybaha booliiska ee maayiradeen sida maayirka la saarado kale inay dadka xuduudaha ka soo talaabaya diiwaan galiyaan ama ay ogaadaan ugu yaraan dadka dalka soo galaya tiradooda iyo waxay yihiin waxaan soo jeedinayaa in dadka meesha ka imanaya Soomaaliya ka imanaya ay fiisal ku soo galaan dalka in time loo qabtay dalka ka baxaan maadaama dawladda maanta ay kala xidhmayso oo ay noolna halkeen marayso waxaan madaxweynaha ka sugeynay inuu xaqiijiyo himilada dadkan iyo dalkan oo ah qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin kii kismaayo ka yimid inuu toos soo galo Hargeysa kii qaraxsadeen inuu soo galo oo ayaan dar aqbal karayo bulshada oo dul qaadan karaan waxa weeyaan guryaha maanta reer xamarku degan yahay kuwa reer Soomaaliland degan kuwa xamar degan tayba badan maanta hadii la cod laga qaado reer Soomaaliland ma kala garan karo wasaaradda arrimaha gudaha ma sheegi karto dad reer Soomaaliya dalka jooga diiba 19 bay dekada berbera ku leedahay Itoobiya baadil ah taasaan laba aqbal karan sina loo aqbal karo warka mana aynaan qaadan meel ay ku qorantayn ugu maarnay bulshada ka maqlay abdooy baa iibisay leeyahay xiriirka imaaraadka ay la leeyahay dawladda inuu dib u noqoto aad muhiimta imaaradaha midoobay ee imaarada mutaxada leedahay United Arab Emirates waxa weeyaan taageerada aynu ka helnaa waxay 10 jeer ama 20 jeer ka liidataa taageerada siisa Soomaaliya geesta kale waxa uu xildhibaanku talo u soo jeediyay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland iyo iskaashiga caalamiga ah xildhibaanka oo arrimahaasi iyo arrimo kale oo badan ka hadlaya waxa kamid ahaa hadaladiisii wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumaddeena waxaan ugu baaqayaa inay cadeeyaan taageerada aynu ka haysto Soomaaliland baasaboorka Soomaaliland lagu tagay baa Dubai may dhicin ilaa hadda heshiiska baarlamaanka lama keenin Itoobiya la galay la galay Imaaraadka waxa uu ku qorayna ma garanayno baarlamaanka Imaaraadka anigu ma ogi baan ku mana arag anigu wallahi heshiiyaan wax wanaagsan soo dhaweynaya laakiin xisbiyada qaranka iyo madaxweynuhu inay ku heshiiyaan wax hadee qeer dastuurkeena dhaafsiisan ma aha waxaynu ku kala soconay indhahayno ahay waa dastuurka iyo waxa aynu dhiganay inaynu ilaashano wadankuna xeerar buu leeyahay ilaaliyaha xeerarka wadankuna waa madaxweynaha qaranka ayay tahay inuu ilaaliyo dastuurka iyo xeerarka farcamo ee dalka u yaala waa Mustafa Ahmed Samakaab telefishinka caalamiga ah ee Nabad TV magaalada Hargeysa.